soo dhawaada saaxiibayaal waa aniga oo ah Charles iyo muuqaal kale. Muuqaalkanu maanta wuxuu ku saabsan yahay mowduuc muhiim u ah noloshaada oo la yiraahdo awoodda doonista ama willpower. Waa mowduuc muhiim u ah laylinta nafta. Awoodda doonistu waa waxa kaa celinaya waxyaabaha lablakaca ah ee yaryarka ah si aan lagaaga duubsan noloshaada waqtiga fog. Si kale haddaanu nidhaahno, waa dabarka kaa celinaya waxyaabaha maalayacniga ah ama dhalalaalka ah si aysan kaaga hodin hadafkaaga weyn ee waqtiga dheer. Af Ingiriisiga waxaad ku arkaysaa erayo badan oo isla mafhuumkan ama conceptigan loola jeedo. Waxaa ka mid ah drive, determination, self-discipline, self-control, self-regulation, effortful control iyo wixii la mida. Sidaas oo kale af Soomaaligana siyaabo kala duwan ayaa loo tilmaamaa. Sida marka la leeyahay naftaada ka adkow, dantaada garo iyo waxyaabaha la midka ah. Awoodda doonista si cilmiyeysan marka loo eego, bixitaanada aqoon-yahanada kasmanafeed waxay isugu soo biyo-shubanayaan micno aan ka fogeyn intii aan soo sheegnay. Balse innagu waxaan soo qaadanaynaa modeelka ay samaysay Kelly McGonigal oo ah aqoon-yahanad cilmi nafsiga caafimaadka ka dhigta jaamacadda Stanford ee carriga Maraykanka. Kelly waxay ku qeexdaa awoodda doonista ama willpower-ka, awoodda aad ku samayso waxa aad doonayso iyada oo qayb ka mid ah ay diidan tahay. Kelly waxay awoodda doonista u qaybisa 3. Awoodda diidmada I want power, awoodda fulinta I will power iyo awoodda rabitaanka I want power. qayb kasta si gaar ah baan u dul istaagaynaa. Awoodda diidmada ama I want power, qaybtan waa qaybta ugu adag uguna muhiimsan awoodda doonista. Waa inaad maya oran karto marka aad la kulanto waxyaabo laablakac ah oo ay naftaadu macaansanayso ama waxa la yiraahdo short term temptations, balse kaa duufsanaya ama fashilin doona yoolashaada waqtiga dheer. Yoolashaada waqtiga dheer waa uun yoolal gaagaaban oo isku tegay. Mar kasta oo aad ku fashilanto kuwa gaagaaban waa mar kasta oo ay sii fogaato gaaritaanka yoolashaada waqtiga fog. Qofka awooddan leh waa qofka dantigaradka ee urursan ee aan cidna marsiin karin waxaan u qorshaysnayn ama wax yeelaya hadafkiisa. Balse qofka aan awooddan lahayn waa qofka deegaanka u nugul ee si fudud qorshihiisu u fashilmi karo. Tusaale ahaan, isaga oo hal shaati doonayay inuu suuqa ka soo iibsado ayuu ku ilxaaxaya oo uu soo iibsanaya coosho dar ah. Meel kasta sidaas oo kale ayuu ku yahay oo qorshihii u degsanaa ayaa si fudud u kala daadanaya markuu la kulmo wax u xiisaynayo balse aan qorshayaashiisa ugu jirin. 2. Awoodda fulinta I will power, isagana aan hoos u sii galno. Awoodda diidmadu waxay ahayd nooc difaac ah, balse awoodda fulinta waa weerar. Tani waa awood ah in qofku waxa uu doonayo uu ku dhiirrado, u dhaqaaqo oo uusan waxba dibdhigan. Waa awoodda qofka u diiday caajiska iyo dibdhigashada. Qofka aan awooddan lahayn niyadda oo kaliya ayuu ka nool yahay, laakiin tilaabo horay uma qaadi karo. Hadafkiisa ayuu iska weheshadaa iyo adduun aan niyaddiisa soo dhaafin ama ideal world ah. Balse qofka awooddan leh waa qof firfircoon oo hawl kasta oo u taalla aan dibdhigan. Waa dadka la yiraahdo xog faninka. Haddii ay labada awoodood ee kale ay ku darsadaan, lama gaari karo. 3. Awoodda rabitaanka I want power. Awooddan waxay u sii qaybsantaa 2. Mar waa awoodda keenta inaad marka horeba hadaf yeelato oo aad wax doonto. Mar kalena waa awoodda keenta inay kugu sii hayso rabitaanka hadafkaas. Waa awood shidaal ah oo micno u yeelisa waxa aad qabanayso. Qofka aan awooddan lahayn hadafba ma yeesho inta aan la isla gaarinba wax kale. Ama ugu yaraan marmar buu hadaf ku riyoodaa balse ma sii yeesho rabitaanka hadafkaas. Halka qofka awooddan leh uu macaansado rabitaanka hadafkiisa oo uu sii sawirto haddii uu gaari lahaa hadafkiisa sida uu noqon lahaa. Haddaba 3daas qaybood ayay ka kooban tahay awoodda doonistu. Qofka 3daba ka dhisan waxaa la oran karaa waa qof awooddiisa doonistu ay xooggan tahay. Balse qof qayb ka mid ah ama 3daba ku liita waa qof awooddiisa doonistu ay daciif tahay ama aan lahaynba. Waa mushkilad weyn oo ay tahay inaad ku baraarugto haddii awooddaada doonistu ay liidato. Adigoo awooddaada doonistu ay daciif tahay sida aad hadaf ku xaqiijiso inta uu doono hal ekaada way adagta. Waxa la yiraahdaa qofka awooddiisa doonistu ay xooggan tahay
waa ka farxad badan yahay ka caafimaad badan yahay ka qanaaca badan yahay ka tabac badan yahay qofka awooddiisa doonistu ay liidato haddaba maxaa keenay awooddaada doonistu inay liidato qofka awooddiisa doonistu ay liidato waxa uu dhibana u yahay maankiisa cid kale ayuusan eersan maankaaga ayaa waxa ku brograamsan habdhaqanno dib kuu dhigaya taas ayaa keenaysa inay kugu dhex lagdamaan laba qof oo iska soo horjeeda adigii fiicnaa ee hadafka lahaa iyo adigii ismaluraha ahaa ayaa ligdamaya mar kastana waxaa kaa adkaada ismalurihii caajislowga ahaa maxaa ugu wacan in mar kasta qaybtaadii fiicnayd laga adkaado oo ay kontaroolka la wareegto qaybtaada ismaluraha ah waxa ugu wacan miyirkaaga qarsoon waxaa jira wax la yidhaahdo miyirka qarsoon ama subconscious mind iyo miyirka soo jeeda conscious mind wax kasta oo aad hadda samayso adigoo aan isogeyn waxa ugu wacan miyirka qarsoon qayb weyn ayay ka tahay waxyaabaha saamaynta taban ku leh awooddaada doonista waa meesha ay hiilka ka hesho qaybtaada caajislowga ah haddaba waa inaad miyirkaaga qarsoon dib u brograamiso oo aad ka sifayso waxyaabaha aan ku anfacayn kuna beddesho waxyaaba dantaadu ku jirto si aad shaqadaas u qabato waxaa jirta qaacido aan u bixiyey ku celcelin haddaan kuu fududeeyo miyirka qarsoon waxaa wax lagu gashaa ku celcelin waxaana wax looga saaraa ka celcelin xog dheere oo ku saabsan miyirka qarsoon iyo miyirka soo jeeda haddii aad doonayso waxa aan ka sameeyey muuqaal soo daawo wuxuu ku jiraa isla boggan ama youtubeka haddii aad ka daawanayso labadaba wuu ku jiraa sidoo kale waxaa jira maqaal aan ka qoray hadda ka hor oo facebookgayga ku jira aan ku soo noqonno mawduucii haddaba sidee awooddayda doonista kor ugu qaadi karaa 5 qodob oo kaa caawin doona arrinkaas ayaan kula wadaagi doonaa 1 kobci iska warqabkaaga self awareness-kaaga ayaad kor u qaadaysaa iska warqabka aad u baahan tahay waa sababta aad u samaynayso waxa aad samaynayso si aadan horay ugu fiirsan jirin ugu fiirso ficiladaada go'aamadaada iyo habdhaqannada yaryar ee aad samayso maalin kasta saacad kasta iyo xitaa daqiiqad kasta wax kasta oo kugu hareeraysan micno ha kuu sameeyeen falcelintaadana la soco waxaa khasab ah inaad isku qosliso mararka qaarkood waxyaabo doqonnimo ah oo aad iska samayso adigoo aan iska warhayn isku fiirso adigoo aan isxukumin ha iscaburin xorriyad dareen keliya qor casharrada kuu soo baxa iyo wixii aad iska ogaato wejiga isbarashada ayaad ku jirtaa isbaro iska warqab 2 meditation samee ama nefisid inaad meditation ama nefisto waxa ay kor u qaadaa awooddaada doonista nefisiddu waa inaad buuqa nolosha ka yara nasato oo aad gudahaaga wakhti siiso sidee waxaad tegaysaa meel aan buuq lahayn oo deggan waxay ahaan kartaa meel dabiici ah ama qolkaaga muhiimaddu waa in aysan sharqan lahayn kadib dhulka fadhiiso oo si fiican salka dhulka u dhig meel ha ku tiirsan kursina ha ku fadhiisan si u fadhiiso aysan meel jirkaaga ka mid ah aysan cadaadis dareemin hal meel ku dhaygag ama indhaha xir sidii kuu xasuus yar looma baahna inay maskaxdaadu mashquusho ama wax ku soo dhacdhacaan hawo qaado haddana soo daa sidaas ku wad ilaa aad diiradda iskugu geyso hawo qaadashada oo keliya la soco dhaqdhaqaaqaaga nuxnuxsigaaga meelaha aad xoqonayso ilaa aad joojiso dhaqdhaqaaq oo dhan maskaxdaada ku mashquuli neef qaadashada oo keliya sharqanta aad maqlayso ha noqoto hawo qaadashadaada oo keliya maskaxdaadu mar kasta oo ay baxdo soo celi yaysan meel kale ka fekerin keliya inaad hawo qaadanayso ka feker marka dambe waad la keenaysaa oo saacado badan ayaad hayn karaysaa meditationka ama nefisidda waxaad ka faa'idi doontaa xirfado si toos ah u horumarin doona awooddaada doonista xirfadahaas waxaa ka mid ah ahmadiysiinta ama attentionkaaga inaad kor u qaaddo inaysan diiraddu kaa lumin ama focus maaraynta stresska isxakamaynta ama impulse control ishelidda is-aqoonsasho ama iska warqabid self awareness buuxa ayaad helaysaa qodobka 3 jimicsi samee jimicsiga marka laga soo tago caafimaadka ku jira waxa uu ku leeyahay door togan awoodda doonista sababtoo ah marka aad isbarto inaad waqti cayiman jimicsato waa tababar aad siinayso miyirkaaga qarsoon waa qodob muhiim u ah tababarka nolosha oo laylinaya naftaada 4 cunto hagaagsan cun qofka uu ku dhaqdhaqaaqayo ee tamarta siiya waa cuntada haddana iyada ayaa sii kala hagaagsan kama hadlayo cunto u gaar ah heer nololeed
sida cuntooyinka lagu cuno hoteelada waaweyn. Cuntada caadiga ee aad heli karto ee aad cunto ayaa kala hagaagsan. Cunto waxaa jirta u samaysan inay caloosha buuxiso, tayo badanna aan lahayn, haddana caajis aad ka qaadayso, kuwana firfircooni badan baad ka qaadaysaa. dabcan adiga ayaa cuntadaada yaqaan. baar oo iska soo habee waxay saamayn togan ku leedahay awoodda doonista. 5. naso. samee nasasho qayb ka mid ah maalintaada. nafta u raaxee. tani waxay dejinaysaa garaaca wadnahaaga iyo xasilloonida jirkaaga. waxay saamayn togan ku leedahay awoodda doonista. 5taas qodob ayaa ugu waaweyn waxyaabaha aad ku kordhin karto awooddaada doonista. sidoo kale waxaad iska ilaalisaa waxyaabaha awooddaada doonista hoos u dhigi karaa. midda u weyn waxa weeye dhaleecaynta nafta ama self-criticismka. ha isdhaleecayn. cafi naftaada. haddii aadan adigu cafin naftaada yaa kaloo cafinaya. haddii aad dhaleecayso naftaada oo aad isciil kaambido, waxaad dareemaysaa bahdilaad iyo dareen ah sida qof dembi galay. gilti baad dareemaysaa. lama baahna waxaas. naftaada cafi, u soo jeedi inay hadda isbeddesho. sidoo kale naftaada la saaxiib oo gocaltooyo sii. self-compassion u samee. ugu dambayn, marka aan isku soo xooriyo, waxaan ka hadalnay waxa ay tahay awoodda doonistu, qaybaheeda, waxyaabaha saameeya, sida kor loogu qaado, iyo waxyaabaha hoos u dhiga. waxaa laga yaabaa in aadan ku qanacsanayn heerkaaga dhaqaale, habnololeedkaaga, tacliintaada, tirada xirfadaha aad taqaano, ama hadaf kuu degsana uu mar kasta kaa fashilmo, ama ugu yaraan balwad aadan ku qanacsanayn ee aad rabto inaad iska goyso si aad iskaga jarto iyo wixii la mid ah. dhammaan waxyaabahaas oo dhan si aad u saamayso, waxaad u baahan tahay inaad dhisto awooddaada doonista. si kasta oo aad u caqli badan tahay, caqliyadda shucuurtaada u dhisan tahay, emotional intelligent aad u tahay, haddii awooddaada doonista ay liidato, waxaad noqon doontaa qof shiiqay oo iska dhinta isagoo aan weli bannaanka u soo saarin wixii ku dhex jiray. awooddaada doonista kor u qaad. muuqaalkuna intaas buu inoogu egyahay. waa inoo iyo muuqaalka xiga. nabaadiino.